Imise waddan ayaa baasaboorka Soomaaliga lagu tegi karaa fiisa la'aan? Soo dhowow daawade mar kale, waa anigoo ah Axmed Deeq Xasan. halkan aad naga dawanayso waa deeqsame. nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. mahadsanid. Ma haysataa baasaboorka Soomaaliga? Jawaabtaadu hadday tahay haa, arrin farxad leh ayaan ku wadaa. 9 waddan ayaa baasaboor Soomaali lagu tegi karaa iyadoo aan wax fiisa ah la dalbanin. Waddamadan qofka u socda waxaa keliya ee looga baahan yahay waa inuu tigidh goosto si toos ah ugu dhoofo. Waddamada adduunka ayaa isugu faana awoodda baasaboorrada oo ah inta dal ee qofka wata uu ku tegi karo si sahlan. Japan iyo Singapore ayaa sanadkan isku haysta kaalinta koowaad marka la eego qiimaha baasaboorkooda. Baasaboorka Soomaaliya ayaa sanadkan kaalinta 106 ka soo galay liiska caalamka. Haddaba waa kuwee dalalka uu qofka Soomaaliga ah geli karo isagoo aan u baahnayn fiisa la sii qaato? Guud ahaan 30 waddan ayaa lagu geli karaa baasaboor Soomaaliga oo ka horreeya baasaboorrada Yemen, Bakistaan, Suuriya, Ciraaq iyo Afghanistan. Hase ahaatee dalalkaas dhammaantood ma wada aha kuwa uu qofka Soomaaliga ah ee baasaboorka Soomaaliga ah wata ku geli karo fiisa la'aan. Sida aan ka soo xiganay bogagga wax ka qora arrimaha socdaalka iyo dal ku galka, 9 waddan ayaa baasaboor Soomaali lagu tegi karaa iyadoo aan wax fiisa ah la dalbanin. Waddamadan qofka u socda waxaa keliya ee looga baahan yahay waa inuu tigidh goosto si toos ah ugu dhoofo. Sidaas awgeed, marka uu ka dego ayaa la siinayaa aqoonsi muujinaya joogitaankiisa. Dalalkan ayaa kala ah: Cook Islands, oo ah jasiirado dal samaystay oo ku taala badweynta Pacific. Waxa uu xiriir siyaasadeed la leeyahay waddanka New Zealand. Haiti, oo ah waddan ku yaala gobolka la isku yidhaahdo Caribbean oo ka tirsan Latin America. Dominica, oo ah dal kale oo ku yaala isla gobolka Caribbean ee Latin America balse ma aha waddanka la dhaho Dominican Republic, inkastoo ay isku gobol yihiin. Malaysia, oo ah waddan ku yaala koonfur-bari qaaradda Aasiya. Gambia, oo ah waddan yar oo isla galbeedka Afrika ku yaala. Micronesia, oo ah waddan jasiirado isu tegay ah oo ka tirsan qaaradda Oceania oo dhacda dhinaca galbeed ee badweynta Pacific. Waxay waqooyiga ka xigta qaaradda Australia. Calankiisa oo xoogaa shabaha kan Soomaaliya ayaa ah buluug ay dhexda uga yaalaan 4 xiddigood oo caddaan ah, 5 geesoodna wada ah. Niue, oo ah waddan jasiirad ah oo ku yaala dhinaca koonfureed ee badweynta Pacific. Waxa uu xagga waqooyi ka xiga waddanka New Zealand. Dowladda Falastiin, oo ah waddan ku yaala galbeedka Aasiya. Saint Vincent and the Grenadines, oo ah waddan jasiirado ka kooban oo ku yaala koonfurta gobolka Caribbean ee Latin America. Benin, oo ah waddan ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Waddamada caalamka ee aan ahayn 9kaas dal dhammaantood waxay qofka baasaboor Soomaaliga wata ka rabaan dal ku gal noocyo kala duwan ah. Qaarkood oo kooban waxay u baahan yihiin in fiisaha ay kugu siiyaan marka aad gaarto, sida Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Comoros, Ethiopia, Ghana, Guinea-Bissau, Madagascar, Lubnaan, Maldives, Mauritania, Palau, Rwanda, Samoa, Senegal, Togo, Timor-Leste iyo Tuvalu. Waad ku mahadsan tahay haddii aad soo gaatay halkan. Haddii aad ka hesho muuqaaladeena, fadlan nagu dhiirigeli legtaada channelkeennana ku soo biir siina gudbi muuqaalkan si aan u helno saaxiibo adoo kale ah. Waadna ku mahadsan tahay tixgelintada.